goorsan daawadayaal waa mar kale iyo wararkii xul iyo xaqiiqo oo aad ka dheehaataan nolol media t v qaybtan oo ah tii labaad ee wararka waxaanu idinku soo bandhigaynaa haddii aad la idmo madaxweynaha maraykanka oo sheegay in dayaxii maraykanku dhacay dhanka hoggaanka caalamka iyo sirdoonka washington oo maraykanka loo adeegsaday taariikhdu waa 18 maaj 2022 duco qabayaal mar kale soo dhowaada warbixin ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in sanadkii 2019 ilaa 2021 ay 119 sarkaal oo hore uga tirsanaa hay-adaha kala duwan ee unugyada maraykanka ay ka tageen jagooyinkii ay u hayeen maraykanka isla markaasna ay u diga rogteen waddamo kale warbixin ay warbaahinta Reuters arrintan ka soo saartay ayay hore daaha ugaga qaaday in farsamo yaqaano hore uga tirsanaa hay-adda CIA ay dowladda imaaraadka carabta gacan ka siiyeen sidii ay u jabsan lahaayeen isgaadhsiinta suxufiyiin haysta dhalashada maraykanka dowladda madaxweyne Biden ayay naxdin weyn ku noqotay in dad haysta dhalashada maraykanka khibrad dheerna u leh farsamooyin lagu waxyeeleyn karo ay u shaqo tageen isla markaasna dad iyo dowladooda dib loogu soo jihayn karo oo loo soo adeegsan karo xildhibaan Jacqueline Castro oo ka tirsan sharci dejinta maraykanka ee Kongareeska iyo xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in xogta Reuters shaacisay ay qayb uun ka tahay halista maraykanka arrintani ku keeni karto haddii buu yidhi aan si weyn wax looga qaban maamulka Israa'iil ayaa hore sidan oo kale u qaadan jiray saraakiil maraykan ah kuwaasoo aan hadalhayn badan dhalin jirin maadaama ay inta badan sitaan isku mabda balse hadda waxaa ku soo biiray waddamo ay ka mid yihiin isutaga imaaraadka carabta hindiya iyo dowlado xanaftu ka dhaxayso Washington sida Shiinaha iyo xitaa Ruushka waqti xaadirkan oo dowladda maraykanku ku hawlan tahay colaadda Ukraine oo ay si adag isu hayaan dowladda Ruushka ayaa walaac badan ka soo hoyanaya saraakiisha sirdoonka maraykanka oo warbixino badani tilmaameen in dowladaha waaweyn ee Ruushka iyo Shiinuhu u kurgaleen sidii ay u soo jiidan lahaayeen xukuumadda Biden ayaa sharciyo adag arrintan ka soo saaray waxaana madaxweynuhu maalintii saalisada ee toddobaadkan saxeexay sharci ay ku baxayso lacag dhan $1.5 trilyan lacagtaas waxay sheegeen inay ku bixinayaan sidii magdhow loo siin lahaa saraakiisha shaqada ka tagta si aanay bay dhaheen ugu baahan in ay dowlado kale u gacan haadiyaan arrintan waxaa kurtaabtay madaxweyne Biden oo khudbaddii sharcigan uu ku sharaxayay ku sheegay in la dhaafay waqtigii maraykanku hoggaanka u hayay dunida balse ay waajib tahay in maraykanku tusaale u noqdo hanaanka dowladnimo ee caalamka taas baa keenaysa dayactirka shaqaalaha iyo in aynu ka hor tagno siraha dalka in aanay gacanta u gelin buu yidhi dowladaha shisheeyaha sharciga madaxweyne Biden saxeexay ayaa dhigaya in shaqaalaha unugyada sirdoonku aanay u shaqo tegi karin dowlado kale muddo 5 sannadood ah marka ay ka tagaan xilalka ay u hayeen Washington